inaan heli waayaan ka baqaya inaan wuxuu ka cabsoonayaa the change itself inuu isbedelka laftigiisa ayuuba cabsi ka qaba haddaad isbedesho armay low taftaxu amalu shaydaan nabiga yidhi sala allahu alay wasalam ku saliya nabigeenana nacam ereyga laakiin waxay furfurtaa ama waxay furfurtaa camalka iyo hawlihii iyo wixii hooseeyay shaydaanka iyo hawlihii aan ka kornay waa hore wixii bay kicisa marka ay nagu furina waxaanu leenahay simply cabsida ka hayshayna isbedesha waa saddex cabsiyo the change ama isbedelka laftigiisa baad ka cabsoonaysaa adoo markaa rajadaada iyo didiiladaadu ay tahay in maxsuulka iyo natiijada ka soo baxday isbedelka samaysay oo noqdo mid hadhow lugaha ku haysta oo hadhow ku qanci weydo oo waxaad haysatay wax ka hooseeya aad gasho qofku wuxuu haysta wax ka weyn inuu helo waa didiilada diinteena iyo ilaahaynu nagu dhiirigeliyey inaynaan ku qancin waxa hoose inaynaan ku qancin waxaan munaasib nagu ahayn inaan markasta rajayno to the best oo ilaahay baa yidhi ana xusna dhanna cabdi bi xadiisul qudsi ilaahay ku yidhi anu waxaan ahay adoonkaygu wax wanaagsan oo iga malaysto ilaahay baa nagu dhiirigelinayaan expecting the best wax fiican filano inaga samaysanayna wax hoose filano filashadeen in ilaahay uu noo aqbalay ilaahay wuxuu aqbalay uu suura geliya qof rabitaankiisa sida naga qabtay inaan cabsidan ka qabnay inaan isbedelnay naga hor joogtay inaan isbedelo saddexda cabsiyood ay naga hayeen nolosheena ka talaasano calaalkan iyo hooseyntan ka talaasano taahan iyo tiihan ka talaasano hooseyntan aan mar walba ka cabanayno inaan ilaahay u cabanayno ku inala siman oo tadoon inala haba inaga waxayn bateeda waxaynta ilaahay baa bixiye ku inala siman aan u calaalan inaan ka korno waxay nagu haya inuu qofku isbedelka ka cabsoodo marka never weliga ha ka baqin inaad isbedesho isbedelka expect the best do the best adwa sida kuugu fiican u dhidid sida kuugu fiican u rafaad sida kuugu fiican aad karayso to the best of your ability inta kartidaada ugu sareysa u dhidid oo u carar waxaad rabto and expect the best aqwal sida ugu dhididay in aaminsanaanta ilaahay saa go'aansaynaad noloshaada isbedesho markaad go'aansatana dhididkayga iyo dadaalkayga leeymo markaad la timaadana فإذا وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله kala tasho dadka wanaagsan samahaaga iyo baraarahaaga jecel tisqaadkaagu maxabiya kalgacayl ku abuuro wanaagaaga iyo horumarkaagu ididiiliyo rajo u dhiso dadka adiga arka wax weyn ee kugu jira adoona naftaadii la arkaynina wax weyn kugu jira dadka saa kugu arka ku arkay ruuxdaada dhisideedii horu socodkeega uu yahay nololdan uu yahay naftaydu naftaada weey dadka yiraahdo ay halka u taagan tahay noloshaada qiimeeygu dadka la tasho marka la tashadana saari أبو قوانصو مركز قوانصو سنة فإذا عزمت فتوكل على الله وآية القرآن مركز قوانصو إلهي قام ودي دي ديت رفاطي إلهي وحا هبالين ونسينا بكوبو قنعينين وحا قبط سينا بوحا هبالين أنو إلهي كوبو قينين وكوبو بهدلين دي دي الرفاط الله تمد يا أخي مركز اسبدل كعبسون اسبدل كقاضو ككعنولوشا ككع حوسينتا ككع دسكا ككع بوركا ككور حمانتا ككور حقدقا ككور هوس وحا هوسات كو قنعيسا ككور أكوكا عبسيد الله بعد نقول شكتين اسبدل waxa weeyaan inuu qofku ka boqo fear of criticism ama horta ma waxa ka horeeya fear of change inuu qofku ka boqoba fear of failure inuu qofku ka boqo inuu fashilmo oo qofku aad uga cabsoodo inuu waxaan isku dayin dhiifkiisa iyo kadeedkiisa halgankiisu inuu ku fashilmo oo ku baadilmo oo hadhow natiijadii ciribta ka soo kordhaysa ay noqoto mid aan caqiibo lahayn oo mar walba qofku ka boqo armaad ku fashilanta oo fashil ka baqana what's holding us back waxa dib inooga xajinaynaan halkaan rabno gaadhno weeyaan marka ha ka baqin guuldarradu waa saarkan oo xidhatay oo la dhaqaaqo suuqa la tagto ku soo dhidido isku waday iska tuur marka la dhow shaqada tagaysad meesha rabtay tagaysad xaabta la soo baashaalayso simple saar kale cusub xidho haddana saarkaasi ka goobinta ka cusub ma xidhateen ila saarka hore xidhantay marka isbedelku waxa weeyaan failine tan ku dhac tan ku fashilan waan ku fashilmay ma laakiin dee aan waan fashilmay laakiin ma jiisan dhulka
waan kaco boorkaas ka dhaqaajay horaan u dhaqaaqay haddana waan kufay haddana horaan u dhaqaaqay dadka had iyo jeer guusha gaadha ee adduunkan maanta taariikhdoodii baysadka dahabigaa ka gashay ma aha dee dad dariiqu ubax u yaallouna dariiq toosan uu soo hay no maba dhacaysa nin guulaystay oo sheeko xumad iyo xanuun badan aanay soo marin aqbal markaa inaad fashilanto aqbalo ku raalli ahow inaad fashilanto markaad fashilantana ha isdhigane ka kac anuma fashilmin dee cashir baan ka bartay hore uga dhaqaaq ma fashilmin dee cashir kalaan ka bartay ha warkaaga sidaa u habeede marka waxaa jirta ninkii la odhanayay Albert ninkii Einstein ninkii waxaan jeedaa ikhtiraacay laydkii iftiinka ayaa waxaa dhacday intuuna laydku u shidminin finally xaggii ugu dambaysay una soo gaaray ayuu wariyey ayaa ku wareystay qolkii uu ku sameynayay leer markaasuu ku yidhi saaxiib Saudiga 3,000 oo jeer buu markaas qisooyinku way kala bedelayeen qaar baa dhahaa 9,999 qaar baa dhahaa 99 times laakiin this one aan hayo waxa weeyaan 3,000 wuxuu ku yidhi agtidu hadalkiisa u dhigay hadalkiisii baa kuu soo qaadanaya waa sida adiga badankiinu aad odhan lahaydeen qofka guusha damca qofka meel raadinaya qofka iskudaygiisu badan yahay markaste inuu fashilmay kula tahay ma fashilmine inuu fashilmay kula tahay tiltana asdeyshin shiyada iyo arrimuhu ma aha sidaad moodaysaabo wax ka hooseeya waxaa jira dadaalan bixiyey oo natiijadii ka soo baxday aanay dadku arkayn laakiin niyadeedu ku qabowday ku degtay ku faraxday ku raalli ahaatay and that's what I'm looking for waxaan raadinayana waa intaa inaan ku farxo nolosha inaan ku raaxaysto ku tiiqtiiqsado nolosha maalmaha kooban ee Ilaahay siiyo waa intaa markaas bedelada aan sameeyay dadaalkayga waxa ka soo baxa markasta waajib ma inaad aragtiin sometimes waxaan xaq u leeyahay inaan isbedelka aan dadaalkiisii bixiyey iyo wanaaga iyo rafaadkaan u maraysay inaan helo anigu isku akhriyo anigu isku raalaado anigu ku doogsado anaa xaq leh marka isku day mar walba inay dadku wada arkaan natiijadaada dadaashay muhiim ma I know way hadi doontaa natiijada waxaad u dadaashay laakiin inaad faraxda kamiis marka ninkii wuxuu ku yiri kelmaddu ku yiri ninkii leerkii ikhtiraacaya ku sheegaya wariyaasha siba u dhigaan saxaafada marka la qiimeynayo sida u dhigaan ereyada sida u dhigaan ku sheegana baladna miisaankaaga saar wuxuu ku yiri waxaad ku kadeedantay sidoo ereyga u dhigaya hadda dhuux ereyada waxaad ku kadeedantay soo saaridda layd iftiima oo adduunka kii ugu horeeyay 3,000 oo jeer waraaq wax ka akhriya 3,000 oo jeer ayaad ku fashilantay soo saaridda layd walina waad soo taagan tahay maxaad kaga din weyday why don't you give it up wuxuu ugu jawaabay ad waa inaad awood u yeelataa fikirkaad ka haysato inaad bedesho nuurka iyo jawgaad ku jirta inaad bedesho aan qofka kula hadlaya sidoo ku haysta inaad bedesho muhiim ah waliba taa inaad ku sii eegtaa laakiin baa just aragtida naftaada ka hayso bedeshay waxay khasab ka dhigaysaa in qofka kale aragtidu ka haysto wuxuu ku yiri eriyeeru cajiib ugu jawaab wuxuu ku yiri yaa waad ku fashilantay naadarkayga daacayda ma fashilmaano waran waxaan ku guuleystay sidoo hadlay isaguna waxaan ku guuleystay 3,000 oo nooc inaan ogaado inaan laydka lagu soo saari karin marka anu waxaan ku guuleystay ogaanshaha 3,000 oo hab oo layd lagu soo saari karin marka waan guuleystay ninka adduunka ku soo kordhiyay 3,000 oo nooc oo layd u shidmin winner markaas wariyay qoslo yiri wallahi waa runta hay uga dhaqaaq that's what we need mar walba uma baahnin inaan isku qiimeeyno qofkan sidoo inoo sharaxnaad isla waa matrix waxa uu qofku ku leeyahay waxa mar walba qiimeyntiisa tixgelintiisa mudnaanta in la siiyo mudani waa sidaas isku aragsan naftaada aan sidaas isku aragto ay khasab ku tahay dadka kale inay isku arkaan alright isbedelka waxa ka hor jooga markaa cabsi aad isbedelka ka qabto cabsi aad ka qabto inaad fashilanto aan waxa ku sheegaya caawa inaad isbedeshay waxay u baahan tahay a lot of things waxyaabo tira beel ay u baahan tahay laakiin waxyaabo tayo badan bay u baahan hadday doonaan tira yiraahdan tayo badan marka cabsida ugu dambaysa waxa weeyaan fear of criticism inaad ka baqdo inaad dadku ku dhaliilaan fatraun iyo abdi marka wax qabto ta xisaab buura iyo abdi iga xun abdi sidaan u qanciya abdi
sideen naftayda ugu qanciya cabdi siduu waxaan qabanaya uga raali noqdaa gabadhan caashiyo aamine iyo xalwe iyo muumina siday igu farxaanay igu gulwadayaan hebel soco waxaan doonayaa everyone in life qof kastoo nolosha joogaayay waxaan doonayaa inuu ii raxleeyo ii boodboodo that's not the aim maaha ujeedadu taa adu ujeedadaadu nooshahay waxa weeyaan xaqiijinta hubintaada xaqiijinta iyo ka dhabsheega iyo helidda waxaa halkan kuugu jira inaad gaadhood ididilooyinka iyo rajooyinka iyo himilooyinka maskaxdaada ka dhex buuxiyey helideeda ayaa ujeedada ugu weyneed adigu nooshahay